gudoomiyaha cusub ee gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire oo madaxweynaha Soomaaliland maalintii shalay u magacaabay gudoomiyaha gobolka Sool ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa waxaana ka hadlay sida uu arko xilka madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay saxaafadda sharafta leh xilka uu marka koobaad waxaan leeyahay horta sanad cusub baynu galnay ilaahay sanadkan sanadkiisa sanad baraqo ka dhigo dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta joogan waxaan u diray hambalyo gaar ahaan shacabka reer Sool ee madaxweynuhu iyaga madashalay in aan u metelo gobolkaas oo aan wakiil uga noqdo waxaan ugu hambalyeeyaa sanadkan cusub ee dhashay 2019 ilaahay sanad khayr qabo oo nabadgeliyo oo barwaaqo horumarineed ha inooga dhigo talabaad waxa weeye xilka uu madaxweynuhu shalay ay magacaabay barasaab gobolka Sool waxaan aad iyo aad baan uga hambalyeeyaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sida uu ugu igmaday insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaan shaqada sidii loogu talagalay shacabka aan ugu adeego daacadnimo mas'uuliyad iyo hawlkarnimo madaxweynahana waan uga mahadcelinayaa magacaabista iyo awoodsiinta geesta kale Cabdiqani Maxamuud Jiire warbaahintu wax ka weydiisay xaaladda nabadgelyada gobolka Sool iyo waxa uga qorshaysan inuu ka qabto ayaa waxa uu ku jawaabay sidan meel walba adduunka waxa ka dhacaan wax iyada u gaar oo badan ma jiraan runtii xaqiiqda marka laga hadlo marka laga taxyala buumbano marka waxaan isleeyahay amnigu al-amn wal iimaan baa leeyahay amnigu wax walba isaga ka horeeya waxa koobaad insha Allah aan ka shaqeyn doonaa وإن دتكو أمان هلان نبض كوسحدان نبض نقصوتان سيه وله عدو قفصة مركا وحن ليه هي ما أنت دي هقول إنه صف عن سجران يسوني ما عنه سيدا إن هراء سوق براني مدة 8 سنة كلوا هذا أرمى بالشدة يعني كشقينني أنت دمنا مدحونها للشقينني أو حفيزك أيان شوقي مركا أنا جو استقل الشقينة يو شقاء كهاي حفيزك مدحتوي ده إن إذن كلا إذن سو بدله عن مالني إذن كنا شرف في إذن تاي anigana sharaf ay tahay waxaan idinku bishaareynayaa in aynu sidii wanaagsaneed aynu u wada shaqeyn jirnay aynu u wada shaqeyn doono idinkana waxaan idinka codsanayaa Maxamed Jaamac Umal wararka warbaahinta SBC Hargeysa